Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta waan idin salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan wax idin sheego taasoo ku saabsan inaan maanta aan ka hadalno dhalinyarada iyo fikirkeeda. Marka waxaan rabaa inaan wax yar aan yara baashaano. Heestan waxaan dhegeysaneynaa kadib marka waxaan guda galinaa fikirkeena guda gelinaa marka. Dhulka dhisa. Markaan kasoo laabano intaasi dhextaalka ahayd ama furfurasho heesta wadaniga ahayd, marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhalinyarada maanta joogta iyo fikirkooda iyo sida ay u fikirayaan. Maadaama dhalinyarada aniga waan ka mid ahay oo aan ka marnayn, laakiin dhalinyarada maanta ayaan rabaa inaan ka hadlo. Halkan waxaa maanta noogu xusan fikirka dhalinyarada maanta nool iyo isla weynidooda. Fikirka maanta dhalinyarada nool iyo isla weynidooda. Marka maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno fikirkooda dhalinyarada maanta nool iyo isla weyniga. Tusaale ahaan, horta intaanan gelin wax yar aan sameyno. Dhalinyaradena haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, isla weyni iyo qab aan mari jirin ma naga dhamaanayo ilaa qiyaamaha, taasoo ugu wacan waxaan ka dhaxalnay waalidiinteen ama environment-iga markaasi joogo. Marka environment maanta joogo, canuga yar kan weyn ama kan yar ha ahaado, waxaad dhahdaba waxbay ka sameeyeen, taasoo isla weynidina marka qaar wax jira ma ahan oo waa lagu kufaa. Marka isla weynida qaar ma fiicno. Marka maanta waxaan rabaa inaan u banaan 6 ogolaan intaan ka gaarin inaan ka qaadano. Tusaale ahaan, qodobkooda waxaa weeyaan dhalinyarada maanta joogto in ay u shaqeeyaan ama ay ka shaqeeyaan hay-ado ama kambaniyo lacag leh. It means huwa wax bartay wuxuuna jecel yahay inuu ka shaqeeyo kambani ama hay-ado. Tusaale ahaan, hay-adaha caalamka oo kale dhalinyaro ka shaqeyso. Dhalinyaro kale yaa wadankan hadda $10,000 bishii ku qaadato. Dhalinyaro annaga naga weynin, dhalinyaro intaasoo kun bishii ku qaadato Soomaaliya ama Africa. Dhalinyaro waxaa u dhowtay Europe ama America. Marka qodobka ugu hore waxaa weeyaan, qofka markuu shaqeysto wuxuu jecel yahay inuu u shaqeeyo hay-ad ama kambani, taasoo lacag badan uu ka helo ama nolol macaan ama nolol wanaagsani uu ka helo. Qodobka labaad waxaa weeyaan
in uu qaato mishaar ka badan inta uu maanta qaato ama inta uu ka qaadan jiray shaqadii hore. waxaa laga yaabaa tusaale shaqadii hore camal oo kale inuu qaadan jiray $500. taasi markay ay kasoo tagto ama shaqada ama laga soo buriyo ama ay kasoo dhamaato, ma raadinaya tii mid ka hooseyso, wuxuu raadinayaa tii mid ka badan, taasoo yacni marmarka qaar keenaysa doqonnimo. inay raadsaa waa sax, lacag ka badan, laakiin marmarka qaar waqtigu kuma saamaxayo because of maanta meesha adduunya joogto biri ma joogeyso. ha noqon marka dawacadii meesha yacni macal ugu baratay haddana macal ugu dhimatay. ha noqon ani berigaa wiilkaa waxaan ku shaqayn jiray $500 every month. waa sax, waagaa wiilka heda sax, laakiin haddana ogow $500 ka badan waad heli kartaa, laakiin bartii maanta meesha ma taagno. way ka hoos mari kartaa, way ka sare mari kartaa, laakiin mar waliba ha fiirinin hal mar. marka qodobka saddexaad waxaa weeyaan, haddaan waayo shaqo kale ma rabo yani inaan wax kale ka shaqeeyo. tusaale ahaan shaqo kasoo qaadbi ninkan inuu jaamacad dhameeyey. jaamacad markuu dhameeyey yaa marka wuxuu rabaa marka shaqo inuu helo. tusaale ahaan inuu wuxuu bartay camal oo kale business ama engineer wax camal rabo inuu barto. wuu bartay, shaqadii uu jaamacadda oga baxay ama xirfadiisii yuu waayey, shaqo kale ma qabanayo. halkaas kuu fadhinaya, war shaqo tag nakata. shaqo ma jirto ku leeyahay, shaqo ma jirto ayuu ku leeyahay. caalamkan waxaan la weynin shaqaa ka jirto, caalamka waxaan la weyninin shaqaa ka jirto. taasna wax baan ka dhixi doonaa ayadana. haye qodobka shanaad qodobka afraad waa isla weyni. qodobka afraad isla weyni waaye, inay isla weyn yihiin. weliba isla weynida xataa kale isla weyni xadidan waa isgood, laakiin isla weyn aan xadidnayn taasi dhibkeeda leedahay. 5 waxaa waaye baahi aan tiri koobnayn. qofka markuu dhalinyar yahay waxaa loo baahan baahidiisa inay tiri koobnaato, baahidiisa inay limid nahaato, ay lahaato xad, ay ka bilaabato isku dhamaato. tusaale waa inaad ogaataa wax kugu bixi karo bishan kharash ahaan, budget ahaan. waa inaad ogaataa maalinka wax kugu bixi karo, sanadkii wax kugu bixi karo inaad ogaataa. laakiin haddaadan ogaan karin sanadka wax kugu bixi karo ama maalinka wax kugu bixi karo, taasi dhibkeeda leedahay. tan shanaad waxaa weeyaan hadafkooda oo gaaban. tusaale qofkii waxaa laga yaabaa hadduu shaqo yar iska helo inuu hadafkiisa tan kusoo koobabo. taasna waxay u badan tahay soomaalida qurbaha joogto badan tahay. inta badan soomaalida qurbaha joogto ayadana qodobka waan imaan doonaa. marka hal qodob baan rabaa inaan ku daro qodobadan oo 6 ooga dhigo, kaasoo mar waliba waxaad haysato ku qanac, laakiin hore usii soco oo gadaal ha u laabanin. hore usii soco, horey usii soco. marka haddii aana kuwan hadda aan soo sheegnay midba mid u dultaagna waxaa ka mid shaqo mishaar fiican oo company ama hay-ad it's good. taasi waa fikirka ugu wanaagsan. hadda maanta dhalinyaro fara badani aan ra'yigooda markaa aruuriyay ii sheegtay. qof walibana inta macquulka ahayd kan hadda waa la qaadan karaa, laakiin waxaa leenahay keep going. haye 2 oo inaan aqoonteeda ku shaqaysto. aqoontaada inaad ku shaqaysto is good, laakiin sometimes ma dhacayso. waxaad taqaano inta badan ma ku shaqaysan kartid. kuma shaqaysan kartid. soo marka caqabado jira awgood wixii aadan helaynin facility ama agabkii ama adiga waxaad u baahnaa aad helaynin. soo marka adiga xooggaada ku shaqayso. haddaad aqoonta ku shaqaysan wayso xooggaada ku shaqayso iyo maskaxdaada. xoog ilaa muxuu kuu siiyey
inaad ku shaqaysato. Marka waxaa kaloo kamid ah qodobada hadda ani igala yaabiyey isla weyni aan xadidnayn iyo baahi aan tirikoobnayn iyo hadafkooda oo gaaban. marka hadafkooda oo gaaban waxaas dhan waxa keenayo waa fikir la-aanta iyo qofkani inuu meel hoose ka fikiro, uusan ku qanco waxyaabaha hoose, uusan ku qancin waxyaabaha sarsare ee qofka biniaadanka ahi uu hiigsanayo, dhalinyarada ficiis ay hiigsanayso. marka isla weynida waa lagu jabaa, isla weyni ma fiicno. haddaad isla weyn tahay adee ku dhibay. marka qodobka asne ugu daran oo kale waxaa weeyaan baahi aan tirikoobnayn adduunka ma laga yaqaano. tusaale ahaan maanta dowladda Canada haddaad wax ka codsato, waxaas waxay ku leedahay budget intee u baahan tahay, maxaa ku qabanaysaa, intee geynaysaa, mashruucana muxuu yahay, mashruuc wax ka faa'iideyna ma yahay, mashruuc wax ka faa'iideysa ma yahay, mashruuc dadka wax ka faa'iideyn ma tahay. waa in la isweydiiyaa. marka everything, sinti xataa biyaha, cuntada, wax walba waa inay tirikoobnaadaan, waa inay xadidnaadaan. hadafkan gaaban asaga waa qofkay ku xiran tahay, laakiin waxaan dhihi lahaa hadafkaaga ha dheeraado. mar walibo hadafkaaga ha dheeraado si aad meesha u hiigsato. xidigaha wax ka sareeya hiigsan, xidigaha wax ka hooseeya hiigsanaan ka wada cafwan. laakiin marka meeshan waxaan rabaa, waxaa ku aadan talooyinkan yar ayaa waxa ay tahay maanta inaan dhalinyarada u sheego, kaasoo ah waxaan oo dhan ama dhib walbo ku haysto waad ka bixi kartaa haddaad xaliso. isla weyni horta iska dhaafa. number 1 isla weyni iska dhaafa. number 2 waxaad kaloo kor u qaataan hankiina iyo maskaxdiina. 3 shaqo la-aan ma jirto, aday kugu xiran tahay, wax shaqo la-aan dhahay ma jirto. 4 oo ah midda ugu wanaagsan, dadka si wanaagsan kula macaamilo, communicationkooda wanaaji. shaqo ma weynayso, information ma weynayso hadaa communicationka wanaajiso. laakiin haddii aad communicationka halayso, shaqo maahan wax baad weynaysaa. marka waxaa laga yaabaa inaa booskaaga aad dhahdo eragay aflagaada ah oo shaqada lagaa soo celiyay si fudud waliba. tan shanaad u dambeysa waxaa weeyaan asxaab fara badan yeelo si shaqada iyo wax walba lagaaga caawiyo. qofna keligii meel ma istaagi karo, waa inuu qofku bulsho ku dhex jiraa. tusaale ahaan hadda aniga keligii meel ma istaagnaan kari, waa inaan tiim ku dhex jiraa. tiimkaasoo ah wax ani aan jeclahay ka shaqeeya. bas tiim aniga aan jeclahay waa tiimka wax ani aan jeclahay ka shaqeeya. adna tiimkaas raaso, tiimkaas la deg, tiimkaas la shaahay, tiimkaas la soco, tiimkaas ma u ahow. marka waxa ku sahlanaanayo inaad waxaa rabto hesho, waxaad jecleed aad samaysato, mustaqbalkaada aad gaadho. dadkana kaa hooseyna caawi, wax u sheeg saan wax u jiraan, saan iyo wax u jiraan, inta wax ka khaldan yihiin, inta wax laga saxaa dheh. aqoonta kaliya isu koobin. adduunka u jeedo aqoonta waa la soo gaarsiiyey. afkan aan ku hadlayno, warqahan aan qorayno, waxaan dhan haddiise maanta macalin ahayn, heerkan maanan garin. hooyey macalin waa laba adduunka ugu qaalisan. asxaabta marka waxaa idin leeyahay, dhalinyarada wadanka waa inaan bedelnaa, wadankana wax u tarnaa, aniga lafeena wax isku tarnaa, ummadda Soomaaliyeed wax u tarnaa. ummadda Soomaaliyeed had way noo baahan tahay dhalinyaro haddaan nahay. marka waa inaan wax baranaa si bulshada aan wax uga bedelno. sidii anaga wax naloo soo baray waa inaan dadka wax u barnaa. aniga iyo intii lamid ahbo waanadani waa inaan qaadanaa oon ku dhaqanaa. inkastoo Soomaali dhahdo waana abuuraa ka horeeyey. marka maanta mar raba inaan warka kusii badi. maanta intaasaa sheekadana u eg tahay ama waanadiina u eg tahay. intaan mid lamida ku kulmi doono, waan idin salaamayaa asxaabtayda janaalka ku xiran.
waana idinkaga mahadcelinayaa sida aad ii dhiirigelisaan oo aad kommentiyada iyo like iyo shareka aad ugu qayb qaadataan. anigu keligay wax ma ihi, laakiin idinkaa waxaan ku ahay. dhammaantiin waa mahadsantihiin until qiyaamaha.